Assalaamu calaykum. Sidee buu ku samaysmay koonku? Sidaynu wada qirsanahay, koonka Ilaahay ayaa abuuray, dhidibadana u taagay, mana aha wax iska samaysmay, ee waa wax ku samaysmay qaanuun sugan oo Ilaahay keligii og yahay. Qeexii weynaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa inoogu tibaaxay. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Waxa kale oo uu inoogu tibaaxay. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Waxa uu sidoo kale inoogu tibaaxay. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Xaqiiqadan in badan ayay gaaladu isku dayeen inay marorsadaan oo yidhaahdaan annaga ayaa daahfaynay. Xaqiiqadii qeexii weynaa. Qeexa weyni waa xaqiiq tibaaxaysa caalamka oo dhani oo ka mid yihiin dhulka iyo samooyinka iyo waxa u dhexeeya iyo wax kasta oo koonka ka mid ah inay ahaayeen hal walax oo keliyata oo isku dheggan. Kadibna uu Ilaahay kala furfuray oo uu kala firdhiyay dhulkana uu ku diyaariyay wax kasta oo jiritaanka nolosha ka qayb qaadanaya, walxihii kalena uu geeyay midba meel ku habboon. Ilaahay qur-aanka kariimka ayuu inoogu lafaguray oo inoogu kala dhigdhigay ugankii caalamka iyo siduu ku dambayn doonaba. Waxaana ka mid ah aayadaha sida cad loogu sheegay aayadahan soo socda. أولم يروا من الأكل الذين كفروا كفره أن السماوات سروين والأرض بركة كانتا إلى أهايين رتقا كويس كلكن ففتقناهما مركا أن كالفوشني وجعلنا وانيا من الماء فيها حقنا كل شيء والبأيان كينا الشيء حي النور أفلا يؤمنون من الرومين Waxa kaloo ka mid ah aayadaha lagu sheegay. يوم مالين بي ملائكة ركل مجزى مؤمنين نطوي أن لا بينه السماء أن لا بينه كطي السجل وراغد الله بيتان سيضوك للكتب على الكتب شيء لقر الكرئي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا تهرب اللوني وكلا أول خلق أمور فيه هورين أيام نحيط الكسو حيني وعدا يضف حارب يهي وعلينا بسنة وهي الفلنقات يضف حق الله إنا أنا كنا وحن هاي فاعلين بأنه أهاني كوت يعني وحن أهاني فاعلين كوت فلا يؤرن كاتميني Sidoo kale wuxuu Alle inoogu tibaaxay. والسماء سودي بنيناها واثقني بأيد أول فقدشني وإنا أنه لموسعون قوة عيالنا لموسعون قوة أول ولا والدك لموسعون قوة وحوات عيالنا Waxa kale oo Ilaahay inoogu tibaaxay. إلى السماء السماء حاجة بأكسي والحال هي دخان أي تهجيك أيضا يضو فيه أي أكسي فقال وتتاوت بالله يضو الحقين ولي الأرض تلكي يا إماتة أهانا معنا فهو عن طائحتين حالة سجين قوة يلي إنكو أقل أو متكرها كارهتين إنكو أقوى خصبا يمكنكم كهنة أما مكرهتين حالات من يوم قصبي قال كواحد أهل أتينا وانو فاعلين حالات من يكون أقلوا يوم إسكالي أو قصبي Aayadan waxaan ka fahmanaa in samadu ahayd qiiq, waxaana isweydiin mudan maxaa keena qiiqa. Waxaa keenaya in walax qaraxdo ama gubato kadibna qiiq ka dhasho. Daawade, adduunku wuxuu bilaabmay markiisii hore isagoo isku dheggan, qiyaamahana sidii unbaa lagu celinayaa oo waa kamaa bada'naa awwala khalqin nuciidu.
daawade miyayna ceeb inagu ahayn in kitaabkeena lasoo akhristo kadibna laynagu idhaahdo annaga ayaa daafurnay? daawade diintaada ood aqoon yeelataa waa kuu sharaf iyo karaamo, diintaada ood mooganaataana waa kuu dulinimo iyo sharaf dhac. yaan lagaaga dheerayn diintaada oo wixii kitaabkaaga laga soo dheehday adiga dib lagugu dhigin. inta ayuu ka egay muuqaalkeenu maanta. intaan muuqaalka xiga ku kulmano, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa horiga dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.